waa ay khatar badan tahay haddana waa uu la ciyaarayaa. ma fududo inaad saaxiib dhow la noqotid xayawaan ay qaniyadiisa sababi karto geeri degdeg ah. ninka aan ka hadlayo waa Aqiid Maxamed Biyo oo loo yaqaan saaxiibka shinnida. Aqiid waa macallin ku xeel dheer soo qabashada iyo xareynta shinnida 15 sano ugu dambeeyay magaalada Beledweyne ilaa gobolada dhexe Soomaaliya ayuu ka shaqeeyaa. Aqiid uma baahna shaqadan markii uu qabanayo xirashada dharka la isaga difaaca qaniyadeeda. taasi bedelkeeda waxa uu tilmaamay inuu ku raaxaysto shaqadan oo ay ula mid tahay isagoo la jooga gabar xural cayn oo kale. waxaan aan ka shaqeeyaa xagga gaar ahaan shinnida iyo beeraha. marka shaqadayda waa shinnida aan ka shaqeysto dadkana macnaha wax shaqada aan qabanayo iyadoo halis ay tahay oo bini'aadankana macnaha ay wada cabsadaan ay aad uga cararaan aan iyada si aad aan u jeclaa waatan hadda aysankayga iyo xabadkayga waxaygana iskaga degan tahay waatana macnaha gacanta iskaga haaso waxaaba imalaysa waxaaba ila tahay baani inay gabar yar oo xurcaan ag fadhiisay dadkana shinniye maleynoohan marka aad ilaahay ku waxaan farsamo oo ilaahay bari waaye nin kasta ilaahay waxa uu bari oo u fududeeyay anigana ilaahay baatan ii fududeeyay alxamdulillah shukri ilaahay baa ku mahadsan wax farsamo ama sixir laakiin dadka markay kugu arkaan aba waxaan sixir u adeegsatay iyo barnaamij noocaas ay keenaan nin kasta shaqadiisa ilaahay baa u fududeeyay ilaahay baana u kaalmeeyo waana waxa uu bartay. Aqiid wax weyn uma arka qaniyada shinnida isagoo og waliba inay tahay shaqadan uu qabanayo mid khatar badan leh. magaalada ilaa miyiga ayuu uga soo xareeyaa dadka raba shinnida halkii xab waxa uu ku soo qabtaa $20 waxaana uu ka maareeyaa nolosha qoyskiisa. waxa uu dadka ka wacyigeliyaa inaysan dilin shinnida oo sida uu aaminsan yahay leh waxtar weyn oo dhinaca daawada bini'aadamka ah. waxa la dilaayo kaneecada iyo baranbarada iyo waxyaalahaas waxba lagu dheefayno masqulaha ku jira iyo waxyaalaha la baabiyo laakiin waxa dhilahay dadweynaha Soomaaliyeed lagu dadaalo shinnida iyo xoolaha iyo beeraha iyo islaamnimada iyo salaada. inkastoo shaqadan ay tahay mid khatar badan leh laakiin isaga waxa uu ku dhiirigeliyaa dhalinyarada wax baratay iyo kuwa aan wax baran inay ka shaqeystaan wadankooda hooyo oo xirfado ay sameystaan bedelkii ay ka tahriibi lahaayeen. waxaan dhihi lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ummadda islaamka ninkii tahriib oo bad isku dil lahay iyo ninkii macnaha meel cidlo oo banaa cidlo waraabo ku dil lahay waalidkiisa ka tagi lahay waxaan dhihi lahaa nin kastaba shaqo wadanka ay dhooban tahay shinnida haduu ilaa malabkan laga soo saaro daawo kasto hadda oo taala farmashiyo shinnida u jeedo oo khatarta halis waa leeyahay malabkeeda ayaa ku jiro daawo kasto la cunaa aan noqoto sharaabo aan noqoto kaniniyaal wax kasta iyada waxay sameeysaa ku jiro. hal maalin oo shinni soo qabanay isla markaana santuuq u xareynayay ayaan la galnay safar qaatay 6 saacadood. Aqiid waxa uu aaminsan yahay in shaqadan ay u baahan tahay geesinimo xitaa qofka haddii cilmi ahaan u barto waxaana uu tilmaamay in qofka shaqadan qabanayo looga baahan yahay in uu muujiyo geesinimo dheeraad ah. geedkan waxa ku jiro boqorkii macnaha shinnida dhan aan mideynay marka mar hadaaba macnaha aad qabatidna oo inta aad gelisidna shinnida dhan bartaan isku meeysa waata hadda u jeeday meesha ay ku tuurintahay. wallahi marka hore mid ilmaha haysta bisan dib kala kulma laakiin mid kale ilmaha hayn wax ma kala kulma xababa ilmaha laakiin mid ilmaha haysta mar dib kala kulmaho aad dagaal ugu sameeyni mid ilmaha haysta waa la aqoonsanaaba waayo marka hore shanqartaada ma gadartay ka hormaanaysa waxa loo saaxiibi karaa marka hore macnaha in shinnida aad tahay waa macnaha harta geesinimo u baahan tahay marka hore geesinimo u baahan tahay iska aad aqoon aan leeyahay iska aad maaha marka hore in geesita baashan guuxeeda ku dilaa sidii dhibax waa ka daran tahay marka waxa la rabaa in marka hore ay muddo ku soo weerarto aad ba ka ordinaa la rabaa adkaysid marka ana aqeed ahaantayda shin hadda ay dhowr xabii qaniinto idana ugu tuursato waxaan marka hore qaniinaysa moogiye macnaha waxa ma dareemo waa xanuun ugu ma haysabo man ay bararto